Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Doctor Maxamed Qaasim Cabdulle, ku takhasusay cudurrada indhaha ku dhacay daaweyntooda. Maanta waxaan ka hadli doonaa waxa afka qalaad lagu yidhaahdo dry eye ama indho qaleelka. Dry eye ama indho qaleelka waa marka ilinta indhaha ay ku filnaaweyso ama ay liidato indhaha ilintooda, taasoo keenta qallayl, cuncun iyo raaxo la'aan indhaha. Waxyaabaha keena indho qaleelka aad ayay u fara badan yihiin, waxaana ka mid ah qofka inay da'diisa aad u weynaato. Sidoo kale waxyaabaha keena qaleelka indhaha waxaa ka mid ah qofka inay hurdadiisa yar tahay oo dhafarkiisa ama soo jeedkiisu badan yahay. Sidoo kale waxyaabaha keena waxaa ka mid ah in isticmaalka shaashadaha sida mobeelada smartphoneska ama screen touchka, kombiyuutarka, tviyada iyo waxyaabaha blue lightka ee la xiriira ee dadka aadka u isticmaala dry eye-ga wuu ku yimaadaa ama indho qaleelka. Sidoo kale dadka diabetic-da ama sokorta qaba, dadka thyroid-ka qaba, dadka dhiigkarka qaba, dadkaas ayaga sidoo kaleeta ama daawooyinka xasaasiyadda allergic-kada aad u qaata, ayagana dry eye-ga ama indho qaleelka waa lagu arkaa. Sidoo kale waxyaabaha dadka lagu arkay indho qaleelka waxaa ka mid ah dadka vitamin A-ga uu ku yar yahay, ayagana sidoo kale dry eye-ga ama indho qaleelka waa lagu arkaa. Sidoo kale hawada qalalan, qiiqa iyo waxyaabahaas sidoo kale ayaga laftirkooda indho qaleelka way keenaan. Calaamadaha qofka uu ku garan karo inuu dry eye ama indho qaleel qabo waxaa ka mid ah in indhaha ay aad u huraan ama ay u gubasho ama burning uu dareemo. Sidoo kale inuu sensation foreign body inuu waxyaaba qashin kaga jiraan oo kale inuu dareemo ama ciid oo kale. Sidoo kale qofku wuxa uu dareemi karaa cuncun, indhihii oo casaada ama redness, indhihii oo guduud noqda. Sidoo kale qofku waxa uu dareemi karaa inuu iftiinka dhibo ama photophobia waxa afka qalaad lagu yiraahdo. Intaan guda gelin daaweynta waxaan rabaa inaan ka hormariyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala indhaheen wuxuu u sameeyey baalal. Baalashaas mid baalka kore waxaa ku yaalo qanjir la yiraahdo lacrimal gland oo soo daayo borotiin dufin leh oo indhaha lubricating u sameeya. Xilliga la soo daayo waa xilliga qofku hurdaayo. Qofka hadduu soo jeedo borotiinkaas dufinka leh lama soo daanayo, sababtoo tahay indhihii waxay ka kooban yihiin mucosa iyo oil iyo borotiinkaas dufinka leh macnaha tirin ilin caadi ah. Marka ilin aan tayo lahayn iska qulqulayso, laakiin borotiinka dufinka leh qofka markuu hurdaayo la soo saarayo, hadduu soo jeedo laakiin lama soo saarayo. Daaweynta sida caadiga ah qofka inuu waxyaabahaas aan soo sheegnay uu iska yareeyo oo social media isticmaalkooda, taleefanada iyo kombiyuutarka iftiinka muddo waqtiga dheer uu isticmaalo iska yareeyo. Hurdo fiican uu habeenkii seexdo 8 fiidnimo kale iska seexdo. Sidoo kale hadduu sokor ama dhiigkar ama hypertension uu qabana waa inuu iskala socdo, iska daawadooda qaataa. Thyroidka waa inuu iska daaweeyo. Waxyaabahaas oo dhan iyo vitamin A hadduu ku yar yahay, hilibka geela, looda, ariga, hilib guduudan oo aad u isticmaalaa. Haddii wuxuu kaloo iska qaadan karaa dhakhtar inuu u qoro ama dhakhtar la'aan labadaba buu qaadan karaa. Waxyaabahan artificial tears goojooyinka la yiraahdo, ama ayadoo saliid ah oo boomaato ah, iyadoo drop ah oo dhibcisa labadaba buu qaadan karaa. Waxaa ka mid ah normatirka, oxytirka, artigelka, lubricating eye dropka waa badan yihiin. Artificial tearska oo dhan qofku wuu qaadan karaa. Sidoo kale kaniini omega hadduu vitamin A-giis yar yahay omega 3 inuu iska qaato. Sida ugu muhiimsan oo looga hortagi karo qofka inuu kombiyuutarada iyo taleefan hadduu isticmaalayo inuu sunglass qaataa ama sharciga 20-20-20 la yiraahdo rulekaas inuu ku dhaqmo. Rulekaas ama sharciga 20-20-3-20aad wuxuu sameynaa qofka markuu every 20 minutes 30 daqiiqo uu mobile ka isticmaalo meel fogaan 6 mitir ama 20 feet u jirto ayuu fiirsanayaa oo ugu yaraan 20 ilbiriqsi camal oo halkaas fiirinaa. Kadib haddana wuu ku soo laabanayaa. Per hourkii halkii saac waa inuu qofka
indhaha rasti ama nasiina siiyaa 3 minutes 3 daqiiqo at least meesha ugu yar marka da'yarta u badan waxaan ka waaninaynaa dhafarka badan iyo inay kusoo jeedaan social media oo aad inay iskaga yarayaan oo regulating of sleeping sameeyaan habeenkii 8 fiidnimo iska seexdaan maalintiina qaynuusho yar ee raadsan 1 hour hal saac oo kale ama 2 saac